السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري سو دواada waan salaamay marka hore qisadan idin hayo waa qiso cajiib ma dhacdaa inuu qof kali u saaro jacayl awadi qisadani jacaylka ah ee kalida la isku saarayo ayaan horta marka hore jeclaan lahaa bal inaan idin guda galo qisadu waxay ka dhacday magaalada Addis Ababa qisadani labada qof ee ay ku dhacday ninka jacaylku markaasi uu gaarsiiyay heer uu kalidiisa markaa u bixiyo gabadha uu jecel yahay qisadani waxay ka dhacday dalka Itoobiya magaala madaxda dalka Itoobiya ee Addis Ababa ay ka dhacday qisadu wiil ayaa wuxuu ahaa wiil taksiila ah waa wiil taksi ku shaqaysta oo markaasi danihiisa raacanaya gabadh bay isku dhex barteen taksiga dhexdiisa gabadhii uu taksiga ku bartay ayaa wuxuu u qaaday jacayl xada jacaylkiisu mid aynu ka yaabnay buu ahaa qisadanina qiso dhaba weeyaan waxayna ku dhacday ninka loo yaqaano habtaamo ayay ku dhacday gabadha magaceeduna ruhaama weeyaan uu jeclaaday dabadeed inanka taksiilaha ah ee taksigiisa ku shaqaysanaya gabadhaasi ruhaama ayuu jeclaaday haddii uu jeclaaday gabadhani in jacayl muddaba la isla waday waxaa gabadha ku dhacay markaasi way xanuunsatay gabadhani xanuun bay u jiiftay muddo 3 sannadood iyo dheeraad ah xanuunka intii ay xanuunsanaysay wiilkani jacayl uu qabay awgii dhakhtarka xataa uu ku hayay uu la joogay hal marka muu dhaqaaqi jirin marna shaqadiisu watay marna iyadu ka warhayay dabadeed waxaa dhacday markay 3 sano gabadhu jiiftay in markaasi la yiri waxay u baahan tahay kali la siiyo ninkani jacaylka uu u qabo awgeed ayaa kalida u saaray gabadha dabadeed markay gabadhu caafimaaday ayaa waxaa dhacday inay iskuursadeen markaasi laba qof oo xaasay noqdeen akhyaaray gabadhani iyadoo ninkani uu qabo oo uu ninkeeda yahay ayaa waxay samayn jirtay waxyaabo badan oo isaga qalbi jab ku ah niman bay raacaysaa niman bay shukaansanaysaa siday doontay isaga ugu ciyaartaa markaa qalbigiisa laakiin isagu uu jecel yahay jacayl uu qabo awgii ayuu iska aamusay iyadoo rag kale la socota amaba shukaansanaysa dabadeed waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah isagoo taksigiisii wada ayuu qof markaasi taksiga ku dhuftay dabadeedna shil buu galay akhyaaray markaasi uu markaa qofka jiiday ayay gabadhii markaasi markuu la soo hadlay buu ku yidhi walaalka igu dhiib dabadeed waxay ku tiri walaalkayna kuguma dhiibayo adaa yaqaana hawshaasi sidaad u gashay adigu uga bax wiilkani markuu shilka galay ay ku tiri waxba igama gelin howlaha adaa galay ee sidaad u gashay uga bax ayaa waxaa dhacday in ay asxaabtiisa amaba dadka ehelkiisa isaga ay caawiyeen dabadeed arrintii qofkii uu jiiday halkaasi markii lagu caawiyey gabadhii waxay bilowday inay ninkan iskaga tagtaba intii hore wixii hore ciyaar bayba ahaayeen ninkii way iskaga tagtay noloshiisiina way ka baxday dabadeed waxaa dhacday in baraha bulshada ay dadku markaasi iyada laftirkeeda lagu canaantay oo lala yaabay oo lagu dhaliilay oo lagu yiri ninkii kalida ku bixiyay ee jacaylka inta le ku hayay ayaad intii horena ragga ka raacday haddana aad imika noloshiisiiba aad ka baxday adduunka wax kasta lagu arki karaa dhibaatooyin fara badan baa jira dabadeed waxaa dhacday in showga weyn ee magaalada Addis Ababa lagu qabto ay labadoodiiba loogu yeedhay dabadeed gabadhii way soo noqotay wayna ka tanaasushay arrinkaasi waxayna dalbanaysaa inuu cafiyo waxaad arkaysaa iyadoo lugaha ku dhegsan oo ku dul ooyeysa oo cafis dalbanaysa wuxuu yidhi markaasi oo uu ku jawaabay wiilkii cafiska waan ogolahay laakiin nolol aan iyada dib ugu noqonayo ma taalo waxaa xataa dhacday in loogu yeedhay
ninka aabbaha ka ah xagga diintooda oo markaasi lagu yidhi bal iyada inuu sasabo darteed loogu yeedhay wiilkii wuxuu yidhi cafiskeeda waan ogolahay laakiin lagama yaabo inaan dib nolol la wadaago dee wuubu ka taagan yahayba nin kelidiisii siiyey oo jacayl weyn u qabay ay kaga baxday oy noloshiina uga tagtay haddana sidee ku fikirtay in iyadu ugu soo noqoto aad iyo aad baan uga xumahay arrinkaasi ninkaasi gaadhay kelidiisana uu u bixiyey lagagana baxay jacaylkii iyo weliba noloshii dhabta ahayd ee ay isku guursadeen jacayl indhamale marka lagu leeyahay waa noocan oo miidhan isagoon u fiirsanin oo jacayl uu wado uu socduu jacaylku markaa hogaaminayo ayuu akhyaaray kelidiisii si jacayl ku jiro uu markaasi iyadoo u hibeeyey iyadiina way kaga baxday wayna kaga tagtay hase ahaatee soo noqotay iyadii hadday soo noqotay maxay la kulantay dee ninkii qalbigiisii uu ka saarayba cafiskiina uu ogolaaday nolosheediina uu diiday barnaamijkaasi aadka u quruxda badan iyo qisadan xambaarsan jacaylka cajiibka ah horta adigu bal haddaad tahay akhyaarta igu xidhan kelidaada ma saari lahayd oo qof aad jeceshahay ma u saari lahayd waa su-aasha maanta aan idin weydiinayo awal waxaa jirta inaan idin weydiiyo su'aalo laakiin waxaan isleeyahay maanta ahaan bal su-aashan weydii akhyaarta kelidaada adigoo qof jecel qofkaasi ma u saari lahayd waxaan jeclaan lahaa inaad qaybta commentiga aad kaga soo jawaabtaan qofkii markaasi wax ka duwan amaba afkaar kale hayana wuu ii soo gudbin karaa akhyaaray koley barnaamijka intaasaynu kaga iman doonaa su-aashuna waxay noqonaysaa adigu kelida qof aad jeceshahay ma u saari lahayd waxaan tabaya waad garanaysaa waxaan jeclaan lahaa bal inaad heer saray gaadhsiisaan haddaan faadumo cilmi ahay oo halkii aan idinka baahnaa aad markaasi taabsiisaan waxba sheegi maayo waad garanaysaan taageeradaan u baahanahay inta aynu ku kulmayno barnaamijkani barnaamij la mida waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh